toban faa'iido oo salliga nabiga laga helo sallallahu alayhi wasallam. Tobanka faa'iido intaana kula wadaagin fiidiyowga hadduu soo gaadho la wadaag walaalada sadaqa jaariyo ku noqon adoo ciida ka hoosmaray ayuu fiidiyowgan ku soo shaqayn doonaa. Kow faa'iidada koobaad wuxuu sabab u noqdaa salliga nabigu inuu qofku ka baxo faqriga. Labo salliga nabiga qofkii badiya in ducadiisa la aqbalo hadduu salliga nabiga ka hormariyo. Saddex salliga nabigu wuxuu sabab u noqdaa inaad hesho shafaacada nabiga sallallahu alayhi wasallam. Afar salliga nabigu wuxuu sabab u noqdaa in dunuubtaada oo dhan la dhaafo. Shan salliga nabigu wuxuu sabab u noqdaa inuu Ilaahay kaaga filaado hamigaaga oo dhan. Lix salliga nabigu wuxuu sabab u noqdaa inuu adoonku u dhawaado maalinta qiyaamo nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Toddobo salliga nabigu wuxuu sabab u noqdaa inuu qofku xasuusto wixii uu iloobay. Sideed salliga nabigu wuxuu faa'iido u noqdaa qofka in baahidiisa la awdo. Sagaal salliga nabigu wuxuu sabab u noqdaa in qofka loogu bishaareeyo isagoo nool jannada. Toban salliga nabigu wuxuu sabab u noqdaa inuu nabigu kuu soo celiyo kolkaad ku sallido oo kuu jawaabo.